waxaa jirta siro badan oo dumar badan ka qarsoon oo aysan fahansaneyn, balse haddiise sirahaasi la siiyo oo wiilku ku arko uusan ka tegin qofkaas, welibana uu maanta oo dhan jeclaanayo inuu agteeda joogo. Dhammaanteen banu aadam ayaa nahay, waxaana jirtaa wax aynu dhibsanayno iyo wax aynu aad ugu baahannahay oo ay nafteenu jeceshahay. Haddiise aad hesho qof waxaa adiga kuu sameeya ama ku siiyaba aadan mar xitaa jeclaanayn inaad weydo, sida ay naftaaduba u jeceshahay raaxada iyo nasiinada, ay ragguna u jecel yihiin inay helaan haweeney noocaas ahi. Dumarka inta badan intay ku mashquulaan waxyaabo aan muhiim ahayn ayaa waqtigii ka dhici doona, iyagoo qofkooda ku abuura caajis iyo iska daba wareeg oo ugu dambeyn meel cidla ah ku soo dhacaysa. Anyway, waqtigaaga qayb yar iga sii si aad u fahanto micnaha ama siraha ragga looga xado qalbiga. Sirta ugu horeysa, haddanayn in badan dumarka waxay dabeecad ka dhigtaan inay daba ordaan qofka heeru isagiiba naco. Waxay la daba taagan yihiin kool qoraal aan dhammaad lahayn, kaaga sii daranay hadal aan wax sidaa u sii badnayn sheegayso. Raggu waa cajiib maskax ahaan iyo qof ahaanba. Markaad si u eegto, wuxuu iska rabaa in la soo waco, in lala hadlo, lala fikiro, la siiyo danayn uusan lahayn. Haddii aad u fiirsato aad xadkeeda aad dhaafiso, uuba dareemi doono kalsooni daro. Dumar badani tan waxay u maleeyaan haddii ay u sameeyaan inuu ku waalanayo ama uusan tegi doonin, laakiin mid gaaban ayaan ku siinaya. Waxyaabaha tayada leh waa nambar yar loo sameeyaa. Tusaale gaaban, iPhone waa mobil qaali ah, uusan qof waliba qaadan karin ama uusan iibsan karin. Bal ka waran hadduu raqiis ahaan lahaa, cid waliba qaadan lahayd. Haddii sida iPhone-ka qaaliga ugu noqday, bal ka waran adiga maanta sidaad ugu baahan tahay inaad haysato iPhone. Hadda niyadaada ka shaqaysi oo weydii, iPhone-kaas maxaad ugu baahan tahay? Koos waa qaali, waxaad u aragtaa inuu yahay mid cajiib ah. Sidaasoo kale weeyaan ragguna, uma baahna in laga badbadiyo. Waxay kuu arkayaanba qof bahdilan oo aanan qof kaleba arkaynin. Markaad muujiso dhiiranaanta, xitaa adigoo qofkii raba, balse aad muujiso adeeg, wuxuu dareemayaa inuu kuu baahan yahay. Wuxuu dareemayaa xiise badan. Wuxuu ku fikiraa goortaad soo wacaysid, waxaad u sheegi doontid, ilaa heer wuxuu gaarayaa adigoonba wacin uu isagu ku soo wacayo, kugu yiraahdo dee xagee gashay. 2. Ha bixin fursad adiga lagugu isticmaali karo. Qiimahaaga waxaa dila mataqaanaa, waa in lagaa samaysto wax waliba. Gabadha dumarta ah waxay qiimo leedahay inta ay tahay qof aan isdhigin, adag, aan lahayn hab lagu furan karo. Dumar badan waxaad arkaysaa leh qof baa iga tegay kadib markuu iga samaystay wax waliba. Goormuu kaa samaysan lahaa haddii aadan qiimahaaga u bahdilin oo aadan u ogolaan wax waliba inuu kaa samaysto? Haddaba gabdhow, waxaad nin qiimo u leedahay waa inta aad is adkayso oo aadan isu dhigin, aadan siinin fursad uu kugu nici karo. Waxaa jirta fikrad raggu yaqaanaan, taasoo ah ku soo dhoweyn, weji furnaan, hadal macaan, inta aad ka helayso fursadda aad naftaada ugu raaxayn lahayd. Weliba daqiiqado yar, waxa ayna ku muujinayaan jilcanaan badan. Taas ha ka yeelin, ku dheh, ma ii baahan tahay? Haa, marka uu kugu yidhaahdo, waxaad dhahdaa reer ayaan leeyahay, u imow, aan wada yeelano guri hagaagsan oo xalaal ah, oo aan labadeennaba ku wada dhisano mustaqbal wanaagsan. Habeenka koowaad, habeenka ku xiga, ma kula soo hadli doono hadduu ahaa qof u socday inuu kugu helo fursad adiga. Xaqiiqda waxay tahay, qofka inaad tani dhahdo kadibna laba mid ayay u noqonaysaa. Qof wanaag rabay weligiis kuma ilaabi doono, waayo wanaag ayuu kaa arkay, abalna wanaagaas ayuu u socday. Qofna xumaan ayuu u socday, markii uu ku guuldareystayna wuu kaa danaysan. Laakiin ogow, ragga qofta ku adkaysa ma ilaawaan, mana laga yaabo inuu qofkaasi ku ilaawo. 3. U qosol, la ciyaar, farxad sii oo la sheekayso habeenkii. Sheekooyinkiinuna ha noqdaan midaad ku kaftamaysaan. Waxaan isleeyahay tani gabadha samaysa oo laga tegay inay yar tahay, koos raggu marna kama fogaadaan qofka siiya farxadda. Tusaale yar ayaan idin soo qaadanayaa. Hooyo iyo aabe
labaduba waa waalid. haddana inta badan waxaan jacayl, farxad, naxariis ka helnaa hooyo. sidaas ayaana mar walba ugu dulkambanaa hooyada, oo aana mar walba sheegnaa hooyo. aabe isagu waa aabe, laakiin hooyo naxariisteeda markaad fiiriso waa cajiib. hooyadaas jacaylka ay ubadkeeda siiso, farxadda ubadkeeda ay ka fakarto, waa sababta aan hooyooyinka u jecelnahay, oo aan aabe uga dhuumano, oo aan ku degdegi karayn. marka haddii aad qof siiso farxad, jacayl, inkastoo aan booska hooyo la gaari karin, xataa la buuxin karin, laakiin tusaale yar ayay idin ahayd oo aan idinkugu fahansiin karay. si aad tani u samayso, waxaad u noqon kartaan saaxiib oo kale. waan ogahay jacayl ayaa idinka dhexeeya, laakiin mararka qaar ula dhaqan sida saaxiib oo kale. koos saaxiibadu wax walba ayaa ka dhexeeya, xitaa mararka qaar jacaylka saaxiib ahaanta ayaaba ka fiican. tan xigto u noqon sida qof daryeelo oo kale, oo weydii xaaladdu ku sugan yahay, weydii waxa uu samayn doono xilliga fasaxa. keliya tan isagu maankiisa ay qabsan doontaa, kabadbadisna looma baahno, way kugu caajisi doonaane. namber 4, haddii aad aragto inuu ku jiro marxalad kale, hala sii sheekaysan, waqti isaga sii oo ka gaabi. waxaa jirtaa qalad kale oo aad u weyn oo ay dumarku sameeyaan. qof ayaa caawo la hadashay, waxaad dareentay in jawigu ka qasan yahay, stress ku jiro, ama xanaaq uu ku sugan yahay. ogaaw qofkaasi waqti keligiis ayuu u baahan yahay. dumarkeena maxay sameeyaan? markaaba qofkii fariin ayaa loo dirayaa ama waa la wacayaa, ma qabanayo, way isbuufinaysaa, fariin ayay u diraysaa, hadallo aanan fiicnayn ayuu kula hadlayaa, jawiga ayay kasii qasaysaa, oo waxaabad moodaa in ay masiirtay oo kale, ama wuu ka aamusayaa. markaasay kool isku daba xijinaysaa, fariin aanan kala joogsi lahayn. yacni qofkii ayayba stress kala gelinaysaa oo way uga sii daraysaa. kadibna muxuu sameeyaa? ilan qofkii jawiga ka qasan, xaalad kale ayuu ku jiraa. markaasuu soo qorayaa wax tiro badan oo xitaa aan loo meeldayan. sheer khilaaf ayaa dhacaya, waa la kala sii xanaaqayaa, iyadii go'aan ay gaaraysaa, isagiina wuuba kasii daran yahay. khalaas, laba xiriir wanaagsanaa ayaa sidaa ku burburay. marka uu xaalad ku jiro, ha ka waalin, keliya waxaad u qortaa hadallo wanaagsan oo qofka dhiirigelin kartaa, sida tan: macaani, waan dareemi karaa xoogaa inaad yara diiqadaysan tahay. dhibaato ma lahan, iska nasoo xoogaa seexo. hadduu madaxa ku xanuunayana, daawo qaado ii seexo. waa daashay, nasiina u baahan tahay. xoogaa waxaan iska jeclaa inaan waqti kuula qaato, laakiin adiga xaaladaadu ma wanaagsana. marka waxaan kuu rajaynayaa inaad ii soo laaban doonto adigoo ku sugan xaalad wanaagsan, waana kuu soo dacaynaa insha allah. way fududahay. waxaad u dirtay hadallo macaan oo dhiirigelin ah, iyo hadallo uu ku sii dareemayo nasiino. waxaa laga yaabaa xitaa markaan inuu kuu sheego waxa ku dhacay, ama uu ku siiyo fursad aad waqti kula qaadato, sidoo kalena aad ogaato xaaladiisa dhabta. raggu dhiirigelimaha way ku degaan oo ku nasiin qaataan. 5, mid ku wanaagsan karinta cuntooyinka kala duwan. waa qish run ahaantii dumar badan u baahnaayeen. cilmi nafsiga aadmiga ayaa qeexay in raggu jecel yihiin ama ay raggu doortaan dumarka mid karinta ku wanaagsan. waxay doorbidaan inay helaan gabadh taqaana karinta cuntooyinka noocyadiisa kala duwan. haddaba haddii aad tahay qof ku dhiban cunto karinta, nooc waliba ay tahay, waxaa jirta meelo badan oo laga barto. waxaan kugula talin lahaa inaad haddaba sii barato oo aad xoogga saarto karinta. qodobka 6 wuxuu gaar u yahay gabadha guursatay ama sayles. waxaad u baahan tahay odaygaaga inuusan tog kale eegin. hagaag way fududahay, keliya waxaad u baahan tahay inaad samayso 3 tallaabo. 1, dhunkasho marka uu yimaado. 2, u diyaarin waxyaabo uu rabo marka uu yimaado. 3, ishagaajin iyo isqurxin marka uu yimaado. lidaalik, qurux badnow. tim single waan ka xumahay, adinkaa guursan waayey, waanii qishi lahaa. mowduuca halkaas ayuu ku egyahay. I hope inaad ka hesheen. sidaas hadday tahay, like noo saara muuqaalkan midkiisa xiga. intaan ku kulmayno, guulaysta dhammaantiin.